kulan degdeg ah oo isugu yimaadeen gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ayaa ka dhacay xarunta Vice Governor. kulanka waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho, waxaana looga hadlayay xaaladda ka taagan degmada Beledweyne ee gobolka Banaadir iyo fatahaada webiga halkaasi ka geystay. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay sameeyeen guddi degdeg ah oo wax ka qabta xaaladda halkaasi ka taagan. gudoomiyaha ayaa shaaciyay in si hor u dhaca ay dhiibeen lacag gaaraysa 100,000, waxa uuna sheegay in guddigaasi ay gudoomiye u noqonayso gudoomiyaha arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basma Caamir. Muqdisho gudoomiyaasha degmooyinka iyo agaasimayaasha iyo maamulka sare ee gobolka Banaadir ujeedadana ay ahayd xaaladda murugaysan ee fatahaada webiga ee magaalada Beledweyne oo runtii aan u aragnay inay tahay musiibo qaran noogana baahan in dadkaas Soomaaliyeed gurmad degdeg ah lala gaaro. annagoo og Soomaalidu meel walba ay joogto inay dadaal wadaan, haddana ka maamul gobol Banaadir ahaan waxaan istusnay inaan mas'uuliyad gaar ah iska saarno oo arrintaas aan shir gaar ah ka yeelano, ka tashano. shirka kadib waxaan go'aansanay 2 arrin. kow, in si degdeg ah dhiig joojin aan lacag $100,000 ah oo maamulka gobolka Banaadir iyo shaqaalahaba ugu talagalayaan oo sida degdega ah in walaalaheen la gaarsiiyo. 2, in guddi aan saaranay oo shirgudoon ay ka tahay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada Basma Shiketi Caamir oo guddigaasna uu bilaabi doono olole degdeg ah oo shacabka gobolka Banaadir sidii ayagana gurmadkooda ay kaalin uga qaadan lahaayeen. sidaas daraadeed qof kasta oo Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa wax alaal wuxuu awoodo in gurmad degdeg ah lala soo gaaro dadkaas dhibaatada ku hayso magaalada Beledweyne. ha noqoto qof walba wuxuu heli karo, ha noqoto raashin, dhar, wax alaal wixii qof walba u fudud. degmo walba gudoomiyaha degmada ku soo hagaajiya si guddiga loo gaarsiiyo. guddigana soo matalaya shacabka gobolka Banaadir wax alaal wixii kaalmo aad soo gaarana aan u gudbino gobolka Hiiraan magaaladaas Beledweyne. marka intaas ayay ahayd. ugu dambeyntii baaq waxaan u jeedinaynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, waqtiyada la isu baahan yahay waa waqtiyadan gurmadka ah. marka waxaan rajaynaynaa qof walba inuu kaalintiisa ka qaadan doono. dhanka kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yariisow ayaa hambalyo u diray ciyaartooyda 17 jirada ah ee finaalka gaaray, isagoona sheegay in magaalada Muqdisho ciyaartooydaasi loogu sameyn doono soo dhaweyn aad u ballaaran. Zeynab Maxamed Aadan, Somali Cable, magaalada Muqdisho.